بسم الله الرحمن الرحيم وإبراهيمي برنامج كيني وحبرشادة إنو أهايت برنامج كان maanta waxaan kusoo qaadanaynaa sida kombiyuutarka wax loogu duubo barnaamij waxbarasho ah tusaale ahaan halkan waxaa noogu jira barnaamijyo waxbarasho ah aanu soo saarnay baro tacliin channel waxaa ku jira barnaamijyo waxbarasho ah marka sidee suurtagal ay ku noqon karaysaa in kombiyuutarka barnaamij waxbarasho lagu duubo ama loogu soo saaro tusaale ahaan iyadoo loo adeegsanayo software duubo ujeedadu aan barnaamijkan usoo saarnay waxa weeyaan maanta si ay suurtagal ugu noqoto in qof waliba uu isku dayo in uu soo saaro barnaamij waxbarasho ahaan Cam Studio waa barnaamij loo adeegsada in wax lagu duubo kombiyuutarka barnaamij tutorial double click bal Cam Studio barnaamijka wax lagu duubo waa sidan Cam Studio waxaa ku qoran open source waxaa lagu talgalay in waxbarasho lagu soo saaro badanaa halkan file configuration kiisa waxaa ku qoran barnaamijkan hadda waxaan ku sameynaynaa configuration si uu high video quality ugu imaado optionka waxaan ka dalbanaynaa enable automatic ban badhankan wuxuu suurtageliyaa in uu videoga si wanaagsan usoo saaro halkan record audio from Microsoft video option waxaan ka dhigan karnaa Microsoft video 1 haddii aad doontid waxaad ka dhigan kartaa DivX 6.8.5 codec 2 logical marka aan barnaamijka run ahaantii aan usoo degsano aan kombiyuutarka ku shubano waxaan u baahanahay in aan soo degsano DivX codec ayadana marka meesha laga soo degsado barnaamijka oo ah website-kan lagu magacaabo camstudio.org Cam Studio sida ujeedaan free streaming video software waxaad kasoo degsan kartaa barnaamijka halka ku qoran Cam Studio 20.ex click halkan si aad barnaamijka ugu soo degsatid barnaamijka aad soo degsatid waxaad ka dalbanaysaa next si aad kombiyuutarka ugu shubatid barnaamijka marka aad kombiyuutar ku shubato waxaa u baahan tahay in videogii aad ku duubi lahayd tusaale ahaan videoha aad ku duubi lahayd videogii waxaad ka dalbanaysaa badhanka record marka aad duubtid wuxuu ku weydiinayaa markuu dhamaado duubistaada markay dhamaato halka aad ku save gareyn lahayd markaanu save gareyno waxaan u baahanahay videoga in loo sameeyo high quality iyo decoration ba waxaanu aadaynaa Windows Movie Maker run ahaantii Movie Maker waxaan ka dalbanaynaa markuu Windows Movie Maker noo furmo waxaan ka dalbanaynaa import video videohii aan hadda aan duubnay ayaan waxaan ku sameynaynaa import durbadiiba marka ay qada buuxsanto halkan ayuu imaanayaa videohii marka waxaa suurtagal ku noqonaysa in aad ku sameysid videoga full decoration qoraalo qurux badan iyo waxyaalaha aad iyo aad usoo jiidanaya in aad ku sameysid videohii marka uu qadka dhamaado halkan ayuu videoga imaanayaa tusaale ahaan halkan waxaa ku qoran ujeedaan qoraalo soconayo iyo barnaamijkii marka isagii halkan aad ujeedaan sida loogu duubay marka configuration loogu sameeyo looguna qurxiyo control lagu sameeyo haddii aad u baahan tihid waxaad u sameynaysaa qoraalo aad iyo aad u qurux badan ayaad ku daraysaa oo warwareegsanaya
halkan ayaad ka dalbanaysaa meesha ku qoran make title or credits. marka halkan ayaan ku dalbanaynaa. halkan waxaan ku qoranaynaa qoraallo qurux badan. waxaa ujeedaan in qoraalada saan ay u socdaan. waxaan ku sameynaynaa haddii aan doono animationka ayaan ka bedelaynaa. waxaanu saaraynaa qoraalo aad u qurux badan sida shaashada ka muuqata. waxaan saaraynaa qoraalo sidan oo kale oo ku soo baxa oo high decoration u sameynaya iyo kuwa kaleba oo imaada iyo kuwa basic title ah iyo kuwa subtitle iyo kuwa stranger ah. noocyo aad u badan ayaan u sameynaynaa videohii. marka in qoraalada iyo aan u sameyno barnaamijka aan si fiican ugu qurxino uu markaa noo hagaago, aan sidaan qoraalo ugu darsano qoraalo aad iyo aad ugu qurux badan. marka ayaa waxaan ku sameynaynaa halkan ayaan imaanaynaa. xariiqin dheer ayaan ku sameynaynaa. marka waxaan ka dalbanaynaa add to storyboard. markuu imaado videohii halkan ayuu imaanayaa. markaas inta uu waqti uu ku fadhiyo timekiisa 5 daqiiqa 10 daqiiqa halkan ayaad ka arki kartaa. marka aan barnaamijka sidaan u duubno uu noo hagaago, markaan quruxdii iyo wixiisu aanu diyaarino, waxaan tagaynaa fileka, waxaan dhahaynaa save movies. durbadiiba waxaan ka dalbanaynaa save movies. next ayaan dhahaynaa. waxaan ku qoraynaa halkii aan videohii ku save garayn lahaynin. dabadeedna waxaanu dalbanaynaa badhanka next. marka sidoo kale wizardah waxaanu ka dalbanaynaa best quality recommended high quality ayaan ka dalbanaynaa. next ayaan dhahaynaa. durbadiiba wizardii hooshii wuu gabagabeynaya. wuxuu arkaysaa in videogii uu ku sameynayo converter aad iyo aad ugu sameynayo sidaan. markuu videohii dhamaadana wuxuu kusoo baxayaa mid aad iyo aad u qurux badan oo markaa videoga u diyaar ah in youtube la saaro durbadeena dadka ay daawadaan. runtii waxaan halkan ugu soo bandhignay in aanu keeno barnaamijkan si ay qof walba Soomaali ah suurtagal ay ugu noqoto inuu asaga kombiyuutarkiisa barnaamij waxbarasho ah ee tutorial uu ku duubo. If I got you